kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn Soomaalida oo maalin kasta aad kala socotaan janalkan xogaha dunida. Qodobada maanta aad daawan doontaan waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo weeraray tallaabo muran dhalisay oo ay dowladda federaalka Soomaaliya qaaday. maxaa ka jira in Farmaajo uu tagay Imaaraadka isagoo ka walaacsan Isbaheysiga Fahad Kheyre iyo dowladda Qatar. waxaad kaloo maqli doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay barnaamij ay sanad kasta ku sharfi doonto qodobnaaleeya oo ahayd suxufiyad Soomaali ah oo ku geeriyootay qaraxii ka dhacay dhawaan Kismaayo. qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid ah daawadayaal midowga Yurub oo xoojinaya taageerada Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo shaacisay in ay dishay 3 ka tirsan Al-Shabaab. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida ayaa daawan doontaan. magacaygu waa Maxamuud Soofaysane. aan ku bilaabay wargeyska Indian Ocean Newsletter oo hoostaga warbaahinta African Intelligence ayaa waxa uu qoray in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu dhawaan booqan doono dalka isku taga Imaaraadka Carabta. wargeyska ayaa ujeedada booqashada Farmaajo ku sheegay inuu mas'uuliyiinta dalkaasi la samaysto isbahaysi cusub isla markaana uu xaqiijiyo inuu yareyn doono saameynta Qatar ay ku leedahay Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka. sida warbixintan lagu sheegay madaxweynaha ayaa ka walaacsan isbahaysi hoose oo ay samaysteen ra'iisul wasaare Xasan Kheyre ku-xigeenkiisa iyo sihayaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda Fahad iyo nin aan la shaacin magaciisa oo madax ka ah shirkad soo saarta shidaalka. waxaa qoraalkan lagu sheegay in 3dan mas'uul ay dowladda Kenya kala shaqeynayaan inay la galaan heshiis aan la shaacin waxa uu yahay. wargeyska ayaa qoray in madaxweyne Farmaajo uu rumaysan yahay in Kheyre uu xiriir qarsoodi ah la samaystay Qatar oo maalgelin doonta ololihiisa doorashada 2021. madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa Kheyre siiyay awood ballaaran si uu u xoojiyo taageeradiisa gudaha. xiriir ay warbaahinta qaar la samaysay xafiiska madaxweynaha waxa ay sheegeen inaysan ilaa iyo hadda waxba ka ogeyn booqashada la qorsheeyay in madaxweynaha uu ku tago dalka Imaaraadka Carabta. sidoo kale xafiiska madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha ayaa si isku mid ah u beeniyay sax ahaanshaha warbixinada la xiriira tuhunada labada mas'uul ay kala qabaan waxayna ku qeexeen wax aan jirin oo lagu qoslo. tuhunka ku saabsan in Kheyre uu madaxweyne isku sharaxay 2021 waa mid muddo taagnaa hase yeeshee weli ma jiraan wax cadeymo ah oo muujinaya. madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xiisada ka dhex taagan dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ee ku aadan xoolaha loo dhoofiyay Sacuudiga. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in uu ka xun yahay culayska ganacsatada iyo xoolo dhaqatada Somaliland ka soo wajahay markabkii ay xooluhu saarnaayeen ee ku xayirnaa dekedda Jidda. Xasan ayaa sidoo kale weeraray dowladda Soomaaliya waxaana uu ka dhawaajiyay in mas'uuliyadi ka maran tahay in la siyaasadeeyo arrimaha horumarinta iyo ganacsiga oo uu sheegay inay si toos ah u taabanayaan muwaadiniinta. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintaasi kaga hadlay qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook isagoona dowladda Soomaaliya ku booriyay in nolosha dadka Soomaaliyeed laga hormariyo wax walba isla markaana baaq u diray dowladda iyo shacabka reer Somaliland. wuxuuna u dhignaa qoraalkiisu sidan: waxaan ka xumahay ganacsatada iyo xoolo dhaqatada Somaliland ee culaysku ka soo wajahay markabka ay saaran yihiin 20,000 ee neef ee ariga ee dekedda Jidda loo diiday in uu ku dejiyo xoolahaasi. waa wax ay ka maran tahay mas'uuliyad ummadeed in la siyaasadeeyo arrimaha horumarinta ganacsiga iyo gargaarka oo dhammaan si toos ah u taabanaya nolosha muwaadinka caadiga gaar ahaan arrinka markabkan. waxay si toos ah u taabanaysaa nolosha dadka reer guuraaga ah ee duruufaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada awalba la tacaalayay. dowladda Soomaaliya waxaan ku boorinayaa in nolosha dadka Soomaaliyeed wax walba laga hormariyo, dadka qaarkiisna ay qabkooda dib u liqaan. dalalka Sacuudiga, Yemen iyo Cumaan ayaa ah dalalka ugu badan ee Carbeed ee dhoofsada xoolaha kala duwan
ee laga qaado xeebaha Soomaaliya. Dowladda Sacuudiga ayaa ku adkaysatay dalabkeeda ah in ganacsatada Somaliland ee doonaya inay xoolaha u dhoofiyaan dalkaasi ay ruqsad ka soo qaataan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan la sii daayay markab ka shiraacday dekedda Berbera oo ku xirtay magaalada Jidda, kaas oo muddo la hayay kadib markii uu Sacuudigu tagay isaga oo ruqsad aysan ka haysan dowladda Soomaaliya. Sida la sheegay, markabkaasi ayaa lagu sii daayay wadahadallo dhex maray wakiilo ka socday dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga, ganacsato u dhashay Somaliland iyo kuwa Sacuudiga ee xoolaha la wareegayay. Kulankaasi ayaa waxaa ka dhashay islamarkaana dhinacyadu ay isla garteen in markabka laga dejiyo xoolaha islamarkaana haatan wixii ka dambeeyay Sacuudiga aan la geyn xoolo aan warqad caafimaad ka wadan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Sida warbaahinta qaar ay ka warheshay, ganacsatada Somaliland iyo wakiilo Somaliland ugu lug lahaa kulankaasi ayaa la sheegay inay aqbaleen, inkasta oo kulankii golaha wasiirada ee Somaliland ay isku soo hadal qaadin heshiiska markabkaasi lagu sii daayay. Dhowaan ayay ahayd markii Somaliland ay beenisay in ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qatar uu sii daayay markabkaasi. Dallad ay ku midaysan yihiin ganacsato xoolaha ka dhoofiya Boosaaso ayaa iyaguna la sheegayaa in ganacsatada Somaliland shuruud ay uga dhigeen in ay warqad caafimaad ka qaataan Boosaaso si xoolahooda loogu dhoofiyo dalka Cumaan. Dalka Cumaan ayaa bil kasta loo dhoofiyaa 10,000 oo neef oo dibi ah, kuwaas oo ka baxa dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Dowladda Kenya ayaa waxay shaacisay in ay dishay 3 nin oo ka tirsanaa Al-Shabaab. Taliska booliiska Kenya waxa ay sheegeen in ciidamadooda ku sugan xuduudda ay la wadaagaan Soomaaliya ay dileen 3 ka tirsanaa Al-Shabaab oo watay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Sarkaal sare oo ka tirsan booliiska Kenya oo magaciisa ka gaabsaday ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AB in qaraxa gaariga uu xalay fiidkii ka dhacay koonfurta deegaan lagu magacaabo Kiyunga oo u dhow xuduudda Soomaaliya. Wararku waxay sheegayaan sidoo kale in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 2 sarkaal oo ka tirsan booliiska Kenya. Waxa uu intaasi ku daray in ay aaminsan yihiin raggaasi qaraxa gaariga ku soo xiray in ay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya oo bartilmaameed ka dhigtay ciidamada ammaanka ee dalkaasi Kenya. Sidoo kale wuxuu sarkaalkan tilmaamay in raggaasi oo saarnaa gaari ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ay ku dhuumaalaysanayeen kaymo u dhow nawaaxiga deegaanka Kiyunga. Booliiskuna ay ka warheleen halkaasina uu gaarigoodii ku qarxay. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kordhiyay weerarada ay ka fulinayaan gudaha Kenya, gaar ahaan deegaanada dhaaxadka Soomaaliya. Dhanka kale, howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa shaaciyay inay ka go'an tahay sare u qaadida taageerada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. War qoraal ah ayuu ururka ku sheegay inay xoojinayaan taageerada ay xukuumadda federaalka siiyaan dhanka dimuqraadiyadda iyo horumarinta dadka. Sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka uu ka caawin doono dhismaha hay'adaha dowladda iyo xoojinta cadaaladda. Bayaanka ayaa lagu xusay in tabarucaadooda ay sidoo kale ku qotonto sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd dal xasiloon. Ugu dambeyntiina, daawadayaal, dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay shaacisay barnaamij ay sanad kasta ku sharfi doonto Hodan Naaleeye oo ahayd gabar wariye Soomaali ah oo markaas si dhowaan ku geeriyootay weerarkii qaraxa loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Soomaaliya ay sanad kasta xusanadeed ay u sameyn doonto marxuumad Hodan Naaleeye. Cawad oo war qoraal ah soo dhigay boggiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku ballan qaaday in dowladdu sanad walba ay bixin doonto abaalmarin loogu magac daray Hodan Naaleeye. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in abaalmarintan ay ku tartami doonaan dhammaan qurbo joogta Soomaaliyeed. Waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay qiimeyn gaar ah ku sameyn doonto dhaqdhaqaaqa iyo waxqabadka qurbo joogta
ku soo laabanaysa dalka. Arrintan ayuu tilmaamay wasiir Cawad in lagu dhiirigelinayo dadka waxtarka u leh dadka iyo dalka Soomaaliyeed, iyadoo la xurmaynayo nolosha hal abuurnimo ee hodan naaleeye. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah waxa ay bixin doontaa insha Allah abaalmarinta hodan naaleeye sanad walba. Waxa aanu guddoonsiin doonaa qof aan u aqoonsanay in uu wax muuqda qabtay oo ka tirsan qurbo joogta Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalka wasiirka. Hodan naaleeye oo ahayd gabar wariye ah ayaa tabin jirtay sheekooyinka wanaagsan ee Soomaaliya, waxaana ay ku geeriyootay weerarkii xoogganaa ee Sabtidii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland. guud ahaan daawadayaal waa naga intaas wararkii aad kala socoteen janalkan xogaha dunida. ballanteenu waa in aad subscribe dhahdaan si aad uga heshaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida.